السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الشرط لما أنت موضوعين وحوين محا كينا Canbaarta calaamadaha Canbaarta iyo daaweyntiisa haday tahay markii kugu horeysay channelkan fadlan subscribe noo saar kana mid noqo daawadaha ugu horeeya mahadsanid Canbaarta waa infection maqaarka ku dhaca waxaana keena jeermiska funguska xanuunkan waxa uu u bilowdaa sida xasaasiyada oo kale caruurta yaryar ayaa noogu badan dadka ay ku dhacdo Canbaartu qayb kamid ah maqaarka oo guduudata amba casaan noqota isla markaana cuncun leh kulayl iyo xanuun isku jira oo laga dareemo goobta casaatay waxa kale oo kamid ah dareen gubasho ah maqaarka oo ay biyo galaan ayaa iyaduna kamid ah inay meeshu qolof yeelato finan ka soo baxa meesha ay waxyeeladu gaadhay badanaa Canbaarta waxa sababa difaaca jirka oo si aan caadi ahayn uga jawaaba shay aan dhib weyn maqaarka u lahayn sidoo kale waxa keeni kara waxyaabaha la isku carfiyo oo qofka xasaasiyada ku keeni kara waxa kale kamid ah kirimiyada qaar la ismariyo oo ku keeni kara sidoo kale waxa kamid ah jiniyerka saraawiisha ee taabanaya maqaarka silsiladaha la gashado qoorta kuwa dhagaha la gashado iyo fargashiga Canbaarta ma laha daawo rasmi ah laakiin waa xaalad caafimaad oo la maarin karo waa daruuri in la iska ilaaliyo waxyaabaha xasaasiyada maqaarka taasoo yareyn karta fursadda in uu xanuunkan ku dhici karo biyo diiran ayaa lagu dhaqaa meesha waxyeeladu gaadhay waxa la mariyaa buumaato khaas ah oo dhakhtarku ku qoray si ay u dayactiranto meesha maqaarku ka casaaday haddii ay yihiin calaamaduhu kuwo qofku dhibsanayo waxaan kugula talinayaa inaad booqato dhakhtarka ku takhasusay maqaarka si aad ugula tashato xaaladahan maanta intaasuu ku eegay mawduuceenu fadlan haday tahay markii kugu horeysay subscribe taabo gambaleelkana furo mahadsanid